imaanshaha aan halkan imid ma aha iska socod kaliya maaha waa waajib qaran iyo shaqo qaran iyo wax muhiim ay tahay in runtii la sameeyo run ahaantii reer Brisbane haddii aan nahay farxad ay noo ahayd in maaragtay ra'iisul wasaaraha annaga uu nagu bilaabo annaga aan cusmaad aan u fidino na soo ajiibo farxad iyo sharaf ay ahayd aniga iyo community-ga aan madaxda u ahay in aan ra'iisul wasaaraha soo dhaweyno وسارة سودو دتكاجي دلكاجي أبغى فرحسنا إماتك أنا إماتي هذا النهاي مقالة بريسبين ودك استراليا جارهان مقالة بريسبين على يقصدوا قلب فرن يجمع فرن إن شاء الله بإذن الله الكريم سومالي كجعل بأوتمد جمع فرن مقصود وينا ويلكم باكلنا هاي جارهان سومالي بريسبين باسينا يا مهادي شالية دا قرشها سو بيساي ما أي سماعتين سبي يا وحجر يا هوين ساهد كي علماء بل يرى صفصا وذاك شو سود كصاحرتي قبل بلعد السوتشي ذا شو ساعتين بدل كوده سلك واحد كسر كعيه أو ساعة كوديدي سودوين ساعة إن شفته ساعته كيسي رئيس الوزراء يقول لك أنت هاي إن عدسي أو فيه أيا وحينوس وتكشي حتى ينصاب وقده وحنا إيش شيء إن وقبل الله بدون السفر كيسة مقالة عن كتل معمل مقالة وهو مديسة ده هو نفسنا إتجينهم ونقبل الله وحكوسو كوبيا أنا وقهالية أنت فريدة هل كان موعود رئيس الوزراء السودو كوسو دودتك السلام عليكم هلا هذا فربنا وكله وهذا هلكن أنا لقيت سومالتي شكين كنا أيو حلي جسي قطعي وحكمل هذا civil aviation وألوكتهم وطن كأنه إن هوديسا ملك على اللي معمولي معناتنا وحنا أبنائي إن هودي سوماليا ليسوا كانوا تاسنا وحمسون كها باللغة في زوجة شطار حنمر على الحي ولا الكسر لو مدرسن أديك وتلاقي ولا على حاجة دكان كوينسلاند كان هن مقالة بريسبين فما سنتي عاو حد على تاريخنا أستراليا يسبدل حولها كدعي أستراليا وأذكرن كتان مرة بانية صوت بنجر نيدت كمرتين بدن كانت ماذا راجع على تاريخ يسبدل شو هو بريسبين التاريخ عصام سمينسر وهذا هو فرح ولي بالتاريخ الأسبوع هنا يعني حلوان برلمان وفود كلا يوحي كسر بالعمل طب ماشي وصل يصح واحد ودك سوق أكون متجليان وزارة سبعة وزارة كأرض يعني وقيمة بدن أنا هو أمانة يا رئيس الوزراء مركز سودو قلب فرن يدد بدر وكتشعل هو جابي على هاي المسؤولة هم تقديمه وإنه واقعه فرديات كان waxaa lagu soo dhaweeyay walaalnimo iyo maxabad lagu qabo hawlaha qabato hadda laga sheekeynayay in dib u soo noqotana rajaynayna haddii la yiraahdo ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay dawlad hor leeyahay inoo dhalatay caawa noola mid tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay haddii aad codsiga naga ajiibtay qalbi furan iyo waji furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa walaalow soo dhawow si qadarin lagu soo dhawow si wanaag lagu soo dhawow reer Brisbane ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow
sidii wax loo maamuli jiray oo wax loo hogaamin jiray asagoo yaqaan oo garanaya ayuu wax bartay kadibna masuul noqday sidaas maaragtay uu ku noqday inta hadda caawa odayaasha iyo dadku ay ka sheekeynayeen oo wax qabadka iyo Soomaalinimada iyo xishoodka iyo wax walba uu ku qabtay saasay ahayd waxa sharaf ii caawa inaan ka soo qayb galo xafladan balaaran ee ay ugu sharfeen reer Brisbane ma aha markii ugu horreysay oo reer Brisbane ama reer Australia ay qalbigayga taabteen markii ugu horreysay waxay ahayd isla maalinkii aan ka soo degay airportka sidii la ii soo dhaweeyay iyo sidii loo hadlay labaduba waxay noqotay wax qalbigayga taabtay markii aan arkay go'aankii dib markaan u eegay go'aankii inaan halkan imaado ay ahayd waxaan xaqiiqsaday go'aanada ugu fiican oo noloshayda aan qaatay mid ka mida inay tahay runtii markii inaan u imaado waxaan ogahayna la qaybsado wixii taladayda ahna aan ku daro waxay og yihiin aan ka barto inay ahayd waqti mudan hawl mudan ana ku faraxsanahay sidaa la adigay aan ku dheeraanaynin reer Brisbane iyo guud ahaan waftiga hadda nagala jooga xarakow iyo tiimkiisa oo reer Melbourne waa mahadsantihiin caawa waxaan bilaabanay marka soo dhaweyntii guud laga tago waxaan bilaabanay inaan isii barano dadku markuu isbartana oo duruufaha jira laga hadlo wixii tala ah iyo wixii la kala ogaanayo markaas ayay imaanayaan dadka yaa iska leh dalka waxaad ka mid tihiin dadkii talada dalkeenu ay ka go'do madaxdu waa jirtaa dalku madaxdu leeyahay magacaaban laakiinse dalka waxaa iska leh dadka idinkuna dadkii baad ka mid tihiin dalka lahaa sida xukunka loo daadejinayo sida maamulka loo daadejinayo waa sida aan u ekaan doono qaybtiina iyo fikradiina aad ku lahaanaysaan maahe cidna ma weydiinaysaan cidnana marti uguma ahin qof Soomaali ka Soomaalisan qof Soomaali oo qofka kale ka Soomaalisan ma jiro runtii qabyaaladda marka aan ka gudubno sharciguna uu noo noqdo waxa aanu dariiqa ku marno ma noqonayno Soomaalida maanta la yaqaano waxaan noqonaynaa Soomaali qani ah waxaan noqonaynaa Soomaali degan waxaan noqonaynaa Soomaali tusaale u noqota dadka mana dheera insha Allah